kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka hadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa kamid ah dowladda Kenya oo ka dhaga adeegtay inay fuliso qodobadii ay kula heshiisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee la doonayay inay ka fulaan dhinaca Kenya iyo cabasho xoogan oo laga muujiyay arrintaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya oo qaaday tallaabo muhiim ah kuna mutaysatay gaadhaysa $100 milyan oo dollar waxaa sidoo kale daawan doontaan warbixin la xidhiidha laba arrimood oo sababay inay xilligani kordhaan weerarada ay geysanayaan ururka Al-Shabaab qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar baleelkana furo si aad ula socotid wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal sida hordhaca wararkeena aad ku maqasheen dowladda Kenya ayaa ka cagajiidaysa inay fuliso heshiisyadii ay dhowaan la gashay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kuwaasi oo qorshuhu ahaa in laga hirgeliyo labada wadanba xilli Soomaaliya dhankeeda ay dhaqan gelisay qodobadii ay kula heshiisay xukuumadda Nairobi heshiis gaadhaya ilaa iyo 10 qodob ay dhowaan ku kala saxiixdeen magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaasi booqasho ku tagay iyo dhigiisa wadanka Kenya Uhuru Kenyatta iyadoo heshiisyadaasi ay qayb ka ahaayeen in si degdeg ah loo dhaqan geliyo qodobada ay isku raaceen labada wadan hase yeeshee Nairobi ayaana weli fulinin hal qodob oo ka mid ah qodobadaasi waxayna ka cagajiidaysaa dhaqangelintooda xilli Soomaaliya dhankooda ay ka socdeen qaar ka mid ah qodobadaasi oo sidii loogu heshiiyey u dhaqan galay dowladda Kenya ayaa caado ka dhigatay dhowr jeer oo heshiisyo la gashay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud inay markaasi ka dhaga adeegto fulintooda halka Soomaaliyana inta badan ay fuliso qodobada ay ku heshiiyaan labada wadan haddii aynu tusaale u soo qaadano qaar ka mid ah qodobadii ku jira heshiiskii ay dhowaan wada gaadheen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta waxay horey ugu jireen heshiisyo ay wada galeen labada wadan sida arrimaha socdaalka iyo xuduudaha oo dhowr jeer ay ka cagajiiday dowladda Kenya inay sidii loogu talagalay u fuliso mar waliba ay kula heshiiso dowladda Xasan Sheekh Maxamuud xukuumadda Muqdisho ayaa si dhaqso leh u fulisay qodobkii ugu muhiimsanaa ee heshiiskaasi laga doonayay dhanka Soomaaliya waxayna fasaxday diyaaradaha sida qaadka mirowga ee ka baxa dalkaasi arrinkaasi oo ahaa midka ugu weyn ee u balanbalaysay dowladda Nairobi islamarkaana ay doonaysay inay si dhaqso leh loo fuliyo maadaama muddo 2 sano ah uuna ka soo degin Soomaaliya oo ay xayirtay dowladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaasi si lamid ah waxaa jiray qodob ku jira heshiiskaasi oo loo arkayay inuu muhiim u yahay Soomaaliya waxa uuna ahaa waxa ay ku bedelanayso qaadka loo soo dhoofinayo dalkeeda oo ahaa kalluunka laga soo saaro badaha Soomaaliya heshiiska labada wadan wuxuu dhigayay in Soomaaliya qaadka loo soo beecgeynayo ay ku bedelato in iyaduna kalluunka ay u dhoofiso dalka Kenya hase ahaatee ganacsatada kalluunka ee Soomaaliya ayaa hadda arrintaasi ka muujinaya walaac xoogan waxayna tilmaameen inuuna jirin ilaa iyo hadda kalluun loo dhoofinayo Kenya heshiiskii ay dhowaan labada madaxweyne ku kala saxiixdeen magaalada Nairobi ee la isku weydaarsanayay ganacsiga qaadka iyo kalluunka kadib ayay ganacsatada Soomaaliyeed sheegeen inayna weli fursad u helin inay Kenya u dhoofiyaan heshiiskaasina uu muuqdo mid ka fulay dhanka Soomaaliya oo kaliya gudoomiye ku-xigeenka dalladda kalluumaysatada Soomaaliyeed Muuse Cabdulqaadir Ducaale oo wareysi siiyay warbaahinta ayaa sheegay inay jiraan caqabado soo wajahay oo la xidhiidha heshiiskaasi waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda loo sheegay oo kaliya in la galay heshiis 10 qodob ah waxaana qodob ka mid uu ahaa in kalluunka loo dhoofiyo Kenya ilaa iyo hadda ma jirto cid ka tirsan dalladda kalluumaysiga Soomaaliya oo kalluun u dhoofgeysay Kenya xilli qaadkii uu ka soo degayo gudaha Soomaaliya waxa uu intaasi ku daray in heshiiska ka hor ay habbooneed in loo yeedho kalluumaysatada oo lala wadaago qorshaha la damacsan yahay si iyaguna ay u bilaabaan dhoofinta kalluunka marka ay Kenya soo bilowdo qaadka soo la weydiiyay in iyagu ay isku dayeen inay la xidhiidhaan dowladda Soomaaliya ama tan Kenya waxna ka weydiiyaan heshiiska waxa uu sheegay oo kaliya in hadda ka hor ay mar madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay kula kulmeen shirka dhacay magaalada Nairobi
oo ay arrintaasi kala hadleen. Waxa uu tilmaamay ilaa iyo hadda ayna jirin cid isu timid oo arrintaasi ka hadashay, haddii ay dowlad ahaan lahayd iyo haddii ay tahayba ganacsatada. Muse Cabdulqaadir waxa uu sheegay in iyaga dhankooda ay diyaar u yihiin inay dhoofiyaan kalluunka, balse ay jiraan waxyaabo badan oo ka horeeya qaabka kalluunka loo geyn lahaa. Marka haddii labada dowladood ayna daacad ka noqonin kalluumaysato, waxay qaban karto ma jirto, ayuu sheegay gudoomiye ku-xigeenka Dallada Kalluumaysatada Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya dhankeeda oo wax laga weydiiyey cabashada ay qabaan kalluumaysatada Soomaaliya iyo waxa ku dhacay heshiiskaasi inay fuliso Kenya, mayna soo jawaabin arrintaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 15kii bishani booqasho rasmi ah ku tegay dalka Kenya, kulamo uu la yeeshay dhiggiisa Uhuru Kenyatta ku kala saxiixdeen heshiis dhowr iyo 10 qodob ka koobnaa. Kaasi kadib labada hogaamiye ayaa shir jaraa'id qabtay kaasi oo lagu shaaciyey heshiis 11 qodob ka kooban oo uu ka mid yahay in si dhaqso leh dib loogu bilaabo qaadka Kenya ay u dhoofin jirtay Soomaaliya oo aan tegin muddo 2 sannadood ah. Heshiiskaasi qaybtii Soomaaliya quseysay ee qaadka wuxuu dhaqan galay 24kii bishani. Diyaaraddii ugu horeysay ee sidii qaadka laga dhoofiyo Kenya ayaana degtay magaalada caasimadda ee Muqdisho muddo ku dhow 2 sano xayiraad ay saarayd. Qodobadii kale ee marka laga yimaado kalluunka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa in Soomaaliya laga caawiyo ka mid noqoshada dallada ganacsiga ee Bariga Afrika, muwaadiniinta Soomaaliyeedna loo fududeeyo dalku-galka. In danaha labada dal si wadajir ah looga shaqeeyo, ixtiraamo madax-bannaanida, la iska kaashado arrimaha bini'aadanimada, iska kaashada arrimaha argagixisada iyo socodka labada waddan, iyo arrimaha sirdoonka labada waddan. Qodobka la xidhiidha in Kenya ay ka caawiso Soomaaliya sidii ay ugu biiri lahayd dallada Bariga Afrika. Dhowaan hogaamiyayaashoodu shir ay yeelanayeen Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga qayb galay magaalada Arusha ee dalka Tanzania, mana jiro ilaa iyo hadda qodob muuqda oo heshiiskaasi ay ka fulisay waddanka Kenya. Caado looga bartay oo ay horey u samayn jirtay mar kasta oo ay heshiis la gasho dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu sheegay in Bangiga Adduunka uu ansixiyey ku dhowaad $100 milyan oo doolarka Mareykanka ah, taasi oo ah lacag loogu talagalay miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya. oo qoraal ku soo daabacay bartiisa ayaa wuxuu sheegay in arrintani ay timid kadib markii ay dowladda federaalka Soomaaliya buuxisay dhammaan shuruudihii heshiiska la wada ahaa, ay ku jireen dib u habeynta maaliyadda iyo maamul wanaagga, sidoo kale arrimo quseeya hanaanka dayn cafinta oo Soomaaliya iyo caalamku ka wada shaqaynayeen sanadihii dambe. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ee dowladda Soomaaliya ayaa xusay in tallaabadani ay tahay mid aad u weyn oo ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya, sidaa darteedna ay ku kasbatay Bangiga Adduunka ay ka hesho lacag gaadhaysa $100 milyan oo doolar, taasi oo lagu kabayo miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan u mahadcelinayaa Bangiga Adduunka oo ansixiyey ku dhowaad $100 milyan oo doolar oo ah kabka miisaaniyadda dowladda markii dowladda federaalka ee Soomaaliya buuxisay dhammaan shuruudihii heshiiskii lagu wada ahaa, ku jiraan dib u habeynta maaliyadda iyo maamul wanaagga, uu sheegay wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Soomaaliya. Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegay in lacagtii uu Bangiga Adduunka u ansixiyey Soomaaliya gacan ka geysan doonaan maalgelinta mustaqbalka ee dalka Soomaaliya iyo sidii loo caawin lahaa miisaaniyadda dowladda dhexe ee Soomaaliya. Wuxuu sidoo kale sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu saxiixo heshiiskani cusub. Ahaantii wuxuu ka gacan geysan doonaa maalgelinta mustaqbalka dalkeena, waana tallaabo lagu ammaanay, ayuu yidhi dowladda federaalka ee Soomaaliya, maadaama ay muujinayso sida ay u aamineen Bangiga Adduunka una dhaceen shaqada ay qabatay dowladda federaalka ee Soomaaliya la xidhiidha waxyaabihii laga doonayey. Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle hadda xafiiskiisa ku sii jooga qaab xilgaarsiin ah, waxa uu ka mid ahaa wasiiradii ugu firfircoonaa aad uga dhex muuqday dowladda hadii u dambeeyey, waxa uuna wax weyn ka qabtay hanaanka dayn cafinta iyo nidaamka maamul wanaagga miisaaniyadda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu ahaa wasiir aanan dhicin tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo dib loo soo magacaabay markii la tuuray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, qadana uu yimid wasaarihii ka dambeeyey Maxamed Xuseen Roble.
se ogo in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre laga sugayo maalmaha soo aadan inuu soo dhiso xukuumaddiisa cusub mar kale booskaasi ku soo celin doono Cabdiraxmaan Ducaale Beyle kastoo ay xusid mudan tahay inuu waayay kursigii xildhibaannimo oo uu horey ugu fadhiyey islamarkaana uusan ka mid ahayn baarlamaanka 11aad ee dalka inse talooyinka la gaarsiiyey Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa loogu sheegay wasiir Beyle uusan jirin qof uga habboon wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya sidaa darteedna uu mudan yahay ka loo eego shaqada uu qabtay in dib loogu soo celiyo wasaaraddaasi. Maaliyadda ayaa sidoo kale wixii ka dambeeyey markii la doortay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu wajahay been abuur oo ay soo abaabuleen dad kale dana gaar ah islamarkaana ay doonayeen inay sumcadda uga haleeyaan wasiir Beyle muddo 3 jeer uu hortagay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kalena laga weydiiyey lacago la sheegay inay lunsatay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya. Wasiir Beyle ayaa iska difaacay baarlamaanka hortiisa wuxuuna sheegay inayna jirin lacag si qalad ah uga baxday wasaaradda maaliyadda ama lagu lunsaday jeebka cid kale. Aynu eegno waxyaabaha sababay in ururka Al-Shabaab ay awoodda u saaraan weeraro xooggan ay ka geystaan meel ka baxsan Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey sare u qaaday weerarada ay ka hayaan gudaha dalka sidoo kale dalalka la dariska ah sidoo kale wadamada Itoobiya iyo Kenya ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya. Sababa isbiirsaday ayaa loo aaneynayaa in xilligan sare u soo qaadaan Al-Shabaab islamarkaana awood u yeeshaan inay weeraro xooggan oo weliba isdaba joog ah ay geystaan. Kimbudul oo ah falanqeeye ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hadlay kororka ku yimid kadib wareysi uu siiyey warbaahinta. Horeen wuxuu sheegay in kooxdu ay ka faa'iideysanayso xaaladda kala guurka ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo haata wajahaysa dagaallo sokeeye iyo dhibaatooyin kale. Ogtahay in xukuumaddii hore la bedelay xukuumad cusubna la doortay dhismaheeda una dhammaystirmin xilligaasi kala guurka oo nidaamka dowliga ah una xoogaysanin ayaa lagu qiyaasayaa fursadda koowaad ee u arkaan ururka Al-Shabaab islamarkaana isku dayayaan inay ka faa'iideystaan ayuu sheegay khabiirkaasi. Ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in 2 sababood ay keeneen kororka weerarada Al-Shabaab. Koowaad waxa uu ku sheegay arkeen inaysan haatan wada shaqaynta dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Tan labaad ayuu ku sheegay istuseen in Itoobiya hadda ay jilicsan tahay marka loo eego xaaladda adag ee ka jirta dalka Itoobiya ay halakayeen dagaallo sokeeye. Sidoo kale taasi keentay inay Itoobiya leeyihiin wada shaqayntii ay la lahaayeen Soomaaliya ma wanaagsana xilligani iyagana dhibaatooyin iyo dagaallo sokeeye ayay wajahayaan oo waa xilligii ugu jilicsanayd Itoobiya. Marka labadaasi sabab dowladood ka qaateen ayaa kordhiyey weerarada ururka Al-Shabaab iyo inay ka gudbaan xuduudda Itoobiya aan horey looga baran inay weeraro ku qaadaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in dhanka Soomaaliya qaraxyadii ku badiyeen gaana weeraro toos ah ayay ku soo qaadayaan. Uu sheegay khabiirkaasi oo ka falanqoonayay kaca weerarada ururka Al-Shabaab. Hadalka khabiirkani wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo Al-Shabaab weeraro xooggan oo isdaba joog ah ay ku qaaday deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya ee xuduudda la wadaaga waddanka Soomaaliya taasi oo ay dagaal culus ku dhex mareen ciidamada liyu booliska ee u adeega deegaanka Soomaalida Itoobiya. Shabaabku waxay sidoo kale sare u qaadeen qaraxyada ay ka fulinayaan gudaha waddanka Soomaaliya waxaana maalin ka hor ururka Al-Shabaab qarax ku dishay wasiirka cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed wiilkiisa. Kale oo qof ayaa ku dhaawacmay iyadoo ay kasii horeysay qaraxii lagu dilay gudoomiyaha maamulka degmada Marka iyo qaraxyo kale oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira toddobaadyadii ugu dambeeyey shabaabku ay ka geysteen gudaha waddanka Soomaaliya. Qofkaas ayaa warkeena ugu dambeeyey sidaas iyo nabadgelyo.